تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. waxay ahayd xaflad ay arday ku qalin jabinayeen ma dhacdo inta badan dalka in ardayda quraanka kariimka markay ay dhameystaan loo dhiga xaflado waa bilow cusub oo dhiirigelinaya arday badan oo hadda dhigata dugsiyada quraanka kariimka dadkii ka hadlay xafladda intooda badan waxay dhiirigeliyeen in caruurta baranaya quraanka kariimka mar walba lagu dadaalo in loo sameeyo waxyaabo dhiirigelinaya xafladda may eta xafladooyinkan ka qiimo badan inuu ku qayb galaan sababtoo ah wala meel la kuwiinayahay waa kalaamka Allah subhanahu wa ta'ala mar Allah la meeli la ka qiimayo ama la kamwiinayo kalaamka Allah subhanahu wa ta'ala ya qiimo badan saas oo kale insha Allah ta'ala ilaahay may bua dadku soo wada abuuray adoomadiis wada eeyin dadka ahlul quraanka may ka tilmaamay dad u sagaaran markii la weydii dadkaas haaneew hum ahlul quraani wa khaasatu dadka gaarka Allah subhanahu wa ta'ala ahlullaahiga may la ka tilmaamay dadka ahlul quraanka runtii waliba araga jirnay in badan xaflado tira badan oo la dabaal dego arday jaamacado dhamaayeen arday iskuulaad qalin jibiyeen xaflado kale oo shil dubuno yani qaab kala duwan leh runtii geek waliba sharaf weyn inaynu ku qayb galna ama xaadirna xaflad eedan qurux badan oo geek yani korlan qaadahay ama la qiimeeyay arday baradeen kalaamullah subhanahu wa ta'ala quraanka kariimka marka runtii may boo sharaf weyn taasna may boo gaaranayata marka de kulay may boo faa'iidada iyo may boo walaalku faa'iido dunya aakhira culimadina horiyeen eed in faraxay xaflado badan ku qayb galay xaflad noocan ay may boo sheegada tiin koreetiyo eeda may boo in dhiirigeliyas inta xaflad oo la ku xusaw quraanka ilaahay ama la kuwiinayo quraanka ilaahay ana ku qayb gala geeka antana ka hadala magaca waalidka hadala dadkaar may ba isaran lu yaabaha oo inagu dhalay ba may boo sheegada dugsi deeray inta saran maaqule awlaad may boo sheegada markii ada roogda mas'uuladaas kaliya ma haada dhalilay ma walbadan may boo sheegada de mas'uulku inta anoo ka hadala may boo aha magaaga waalidiinta may hambaliyay ardadii may boo aha dhamaysatay dugsiga ama madrasada Ibaadur Rahmaan may laha ilaahay siin ka anfac quraankiisa ma dhamayte dugsigan in ku xirteena may boo sheegada ilaa ada school secondary ku dhamaayay dugsiga may boo maalinka ku warqab waalidiinti madrasadii oo Ibaadur Rahmaan ee ku mid aha ducfadeen koreeti oo quraanka dhamaayeen koreele gabarle eeda inka faraxsana farxadaasna ma isku lahayn rabbiga raxmaanka haay oo hana deersi iyo macallimiintii oo ciyaalka say eed hanka tahajudeen iyo farxadaasna isku le teedii lamaad hadii una waalidiintii ardayda awlaad wala awlaad ma didala wali eedin jeelaha madi onagu wala korankoor wala raas onagay soo fidhiin deer heeraas fidhaha badeer usayn garguur heeraas hoob garguur usayn dareer heeraas jaran jaro markum maduna waalidiinta onagaan hoob dooba barad wali eedin jeelna inuu sunneenka bilaaw quraanka ya eedin jeelna hoob quraanka buusa bilaawo haddana wali eedan jeelna onagaan in quraanka dhamaa cimrigaan aan alaniin deersi macallin fayl oo awlaadneen tarbiyeeyo oo quraanka in xifdisayna
ilaahay nasiibkana ku yeelno eedan jeelna haddii unaan waalidiinta oo hooyooyinka maamooyinka waalidiinta magalka wali eed ku dulqaad badana tarbiyada awlaada iwal barashada awlaada unu eed muhiimadan saarana inkastoo yoona garab ayin marka way mahadbiin anta maan ku jeediyeen macallimiintana ilaahay adduunyo aakhiraba ajar xasanaad koo maana ku sii oo hanin deersi awlaaditaana elfniin ku bilaaban albaqraniin ka jeeyeen geeka farxad wiin on koo maane ya nunu dhab wadaagna wali ilaahay ku rajeeyane anta kale oo hata dhiman oo dugsiga dhikadaasoo william dhamaanana wali ilaahay ku rajeeyane farxadtan itan lamid inuu kala kulana noo caafimaad iskuulaadka iyo jaamacadaha ayaa lagu yaqaanay in loo dhigo xaflado markay ay qalin jabinayaan maalmihii ugu dambeysay waxaa baydhabo ku soo badanaya dugsiyada qur-aanka kariimka oo ardayda dhammaysataa loo dhiga xaflado lana guddoonsiiyey shahaadooyin iyadoo waalidiinta ay la garab joogaan dhiirigelin ay u soo iibinayaan hadiyado kala duwan waxay isugu jireen ardayda wiilal iyo gabdho qaarkood qur-aanka ayay dhammeeyeen aad bayna u yaryar yihiin haddana marka ay akhrinayaan qur-aanka ayaa ah mid shucuurtaada kicinaya islamarkaana ku darjiiginaya si aad u sii dhegaysato marna ma ogolid inaad dhagaha ka qaaddo الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما si dhageysato marna ma ogolid inaad dhagaha ka qaado tan oo kale waxay ay tusinaysaa ama hoga tusaaleynaysaa ardayda Soomaaliyeed in ay mar walba ku dhiiradaan barashada quraanka kariimka iyo xifdintiisa xafladii oo aan maanta ka qayb galnay oo ka dhacaysay hoolka Horyaal ee inta badan lagu qabto kulamada ayaa ay ku qalin jabinayeen arday dhamaysatay dufcadii koowaad oo tiradoodu gaaraysa ilaa 33 arday iskoolka ama dugsiga quraanka kariimka Cibaadu Raxmaan dadkii ka hadlay isugu jiray macallimiinta jaamacadaha iyo gudoomiyaasha iskuulaadka maxalliga iyo kuwa nidaamiga ee ku yaala Baydhabo waxa intooda badan isku raaceen in awlaadda iyo tarbiyadooda ay muhiim u tahay bulshada Soomaaliyeed si loo helo awlaad tarbiyaysan oo marta wadada toosan ee Islaamka ilaahay sadaqada sabadushooda waxa uu soo dejiyay quraanka kariimka in lagu dhaqmo arladana lagu tadbiiqiyo haddii la helo jiil noocan oo kala iyo waalid daba taagan oo mar walba dhiirigelinaya quraankana waxa ay hoga tusaaleynaysaa in dalka uu mari doono dhabo wanaagsan oo laga filayo mustaqbalka soo socda inay ka soo baxaan awlaad dalka iyo dadkaba u roon muxtaar sheekh aadan dalmar telefishinka iyo raadiyaha warsan barshan weynay Baydhabo Jannaay